waxaa la isbarbar dhigay nimankii horgallada ahaa ee cadowga ahaa ee Hargeysa jooga magaca sheeganayay iyo raggii madaxda ahaa ee lagu matelayay Garowe markaana waa bayaamiye haddana waa ku celinayaa Puntland 1998kii reer SSC baa dhisay oo wax ka dhistay ragga Puntland joogay waa madax ku joogta kalsoonida iyo matalaadda reer SSC ilaahow qacma uu ka yeersiiyey qolyihii midnimada beelaha harti doonayay in ay tushuush ku furaan waa madaxweyne Firdhiye waa hadalkiisa maxay ka aaminsan tahay SSC qaatumo siyaasiyiinta beelaha dhulbaante ee ka tirsan maamulka Puntland uu noo cadeeyay halkan kalena waxaad ila aragtaan gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo xalay si cad u cadaynayo waxa ay Puntland ka aaminsan tahay maamulka SSC qaatumo iyo in ilaa ay xilligan Puntland ay bixinayso qarashaadka maaliyadeed ay u baahan tahay SSC qaatumo gaar ahaan taakulada ciidamada waa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waa nin reer Sanaag ah reer Baran ah ila arka isagana saabsanada arrimaha qaatumo maxaa idinka qorshaa tabantaabay u baahan tahay arrimaha qaatumo waa labo mid waxa weeye wada shaqaynta iyo nidaamkii halkaas 6 February laga dhawaaqay dowladda Puntland waa soo dhaweysay dagaalkiina waad ogeydeen doorka ka qaadatay wada shaqayn tan nidaamkuna sideedii u jirtaa ciidamada jira oo dowladdu taageero siiso waxa laala iyo wixii shaqo maamula oo baa isu furan oo laga wada shaqeeyaa waana in la shaqeeyana waa waajib waana la shaqeynaa dadka hor xilwaanaha la kiyimay xilwaanada gobolada ku soo jeeda kulamo yeesheen iyo wasiiradaba aragtidaas marka wax iska bedelay ma jirto waana la wada shaqeynayaa maamul ahaan iyo nidaam ahaan tan labaad oo ah waxa weeye mustaqbalka qaatumo oo maamulnimada sidee buu noqonayaa taasna waxay ku xiran tahay oo arinta markii hore asaaskeeda lahaa ismada dhaqanka SSC qaatumo ayaa ku dhawaaqay markii dambana iyaga halka yimi oo yiri annaga gobol dhigayna nidaamka meel gaar ah la sameeyay nidaamkii waa shaqeynaya sida hadhow way noqonaysaa annaga dadkoo dhan dadkii Puntland story isugu yeerayna iyadana iyaga laga sugayaa oo ay la jirtaa waxaan isleeyahay labadaas bay ku kooban tahay marka laga hadlayo wax mushkilada oo ka jiraan ma jirto horayna madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxaan halkaan idin kula wadaagay in uu isna baarlamaanka Puntland hortiisa ka sheegay maamulnimada SSC qaatumo inaysan cidna u daba fariisanayn ayna xor u yihiin systemkooda iyo maamulkooda madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani markii halkaas maxaa ku soo fashilmay dhalinyaro miidiyaha lagu soo daayay oo mataqaanay bariiqday oo 24 saac wax aan jirin daldalayay siyaasiyiinta Puntland baa khaatmadiidan mataqaanay shacabku waa shacab fiican siyaasiyiintooda xun kuwaas hadda hadlay ma ahan miyaa siyaasiyiinta Puntland soo dhawaada dhamaantiin warbixintan daaqadaha uga galiya nacabka beesha harti mataqaanay harti ku dhex jiro ummadda raba inay isku dhuftaan rabaan midnimadaas yartahay oo aynu aragnayo ilaahay mataqaanay uu nasiyay inay tafaraaruq noogu bedelaan iyo meel aan ka soo laabanay oo xumayd way xumayde meel aad u xun baan ka soo laaban raba in dibna loogu celiyo waliba dhalinyaro harti ah waliba reer qaatumo iyo reer Puntland ah ayaa arintan ka shaqeynayo oo qaybna xisbiga wadani ka mushaar qaato qaybna Xasan Garguurta ka mushaar qaato iyaga isku jawaabaya markay kuwan Puntlandna halkaas iyo dhanka Somaliland u janjaraan kuwaana dhanka Xasan u janjaraan marka iyagiiba isku jawaabaya wax aan jirin ayay abuurayaan marka de anaga halkan joogno oo dadka waxa saxda ah u sheegayno siyaasiyiintan codadkooda daarayna garaadada iyo isimadan daarayna inta xalaasha ah ee midnimada iyo wada jirka ku faraxsan baan codkooda daarayna wixii kalena nama matalaan in xun meel kasta waa jooga
سيفوي مقالك أبدا ما سنتين عندها أنا أقول بين أن كل عجلتي مدحين فردية أو سعد ولا مدحين فردية إن سياسيين تبطلان أي سنة هين هرج الله دليل ربضان أورير قاطمة أيام ما أنتي ما تقانا ورقدي هرج الكبرلمان كأسي قاطم ولي بكواحد السنة ما يكون قرين أي دهن كوا بدلان محل الله قريبا مدحين فردية إنه عضينا كوا بدلان أي سنة هرج الله هين وأي ربيتان شعب أي كجوجان أول ليس مدى شيء ولا بدأ معمول ولي إسكوسيت كيهين ولينا لما كره قرينه فضيت كجوجي مركب أنا إسكا فضاتي أما ولا قل ذكرى أما قولي أسلم بواحد يكره وحيبا ما تغنى سودين كبدلان هوست جوجو مركز يجونا وحن لو جوجن ماشي كينين لا أرك وحلا إسبربر دقي نمانكي هرقلدا أها عدو أها هرقيسة جوجا مجا عشاقيني يهرقي مدحدا أها ينقوم تلي جروي markaana waa bayaamiye haddana waa ku celinaya Puntland 1998kii reer SSC baa dhisay oo wax ka dhistay ragga Puntland joogay waa madax ku joogta kalsoonida iyo matalaada reer SSC diyaad war xuno lagu waa marka haddaad aragtaan hadda kadib qof SSC qaatuma magaceeda ku hadlay ama media soo fariisto ama Facebook soo fariisto ama YouTube soo fariisto oo ku hayo siyaasiyiinta Puntland baa wax noo diidan khaatimo waxa burburinaya Puntland qofkaas meesha aad ku aragtaan report saara waa qof tuug ah oo dad kale u shaqeynayo oo aan meel wax marayaan ba aan ogeynba xataa qaatimada uu isleeyahay u dood xataa war kama hayo ma oga in labada maamul isku sidkan yihiin in saacada Puntland ay miisaaniyad gaar ah ay u bixisay si khaatimo ay u jaangoysay ma oga haddaad aragtaan dadka noocaas ah report saara mar dambana daawanina aadiya haddaad aragtaan kuwa kale oo magaca reer Puntland ku hadlayo oo leh ma taqaanay Solbari maamul ma noqon kartaa iyagana reerihii bay u adeegayaan iyagana block saara maxaa soo haray markay inta xalaasha ah ee ehelka ah way garanayaan doqonna loo sheegi maayo waxa jira maanta annagu midigta fog baan nahay waliba midigta fog waxaan ku nahay midnimada dadka iyo deegaanka waxaana jecelahay maamuladan dhan inta laga taqaluso in hal maamul la noqdo annaga midigta foga baa taas aaminsan in hal maamul la noqdo ayaan rabaaba waxaana ka duulayaa hadalka garaad jaamac garaad cali ee ahaa sanadkan maanta nin aan tolkiis u urursanayn ma noolaan karo taasaan ka duulayna annagu taas baan ka duulayna oo waxaan rabnaa in hal maamul la noqdoba maamuladan badan iyo heblaayo iyo laga baxo oo inta doorashooyin qof iyo cod la qabto dadku is sharaacaan madaxweyne la doorto oo ma taqaanay dhalinyaradii iyo ciyaalkii la baro farsamo oo jaamacadahan iyo sekondariyada waqti lumiska ah ee been abuurka ah inta laga guuro in ardayga wax bari anfaca oo xirfad ah uu ku shaqaysto la baro oo cisbitaal aan dhisano oo laamiye aynu dhisano oo aynu isku tashano oo canshuurteena inagu aynu deegaankeena ku celino oo xildhibaanada inta canshuuraha qaataan Nairobi iyo Turkiga ku soo tunto la joojiyo dalka ay canshuurtii lacagtii galiyaan oo uu san xaduud ina kala xirin oo saal la isku dhex maro saal la isku dhex galo saal loo kala baxo saal la isku dhex galo haddana baan anagu aaminsadaan midigta fognay barwaaqadaasna maadaama xilliga la kala shikisan yahay cidna la garanaysa ma jirto laakiin Soomaaliland bayna la garan doonaan wanaaguna wuxuu ku jiraa isku duubnaanta haddaad aragtaan xumaanta waxay ku jirtaa tafaraaruq iyo kala qaybsanaanta dadkan dhan waa harti waa hal qoysdi waa halkaas qoys markay harti asoo qaad isaaq way naga da'wan yahay hadda hartinahay laakiin sida waa ka taran badanahay ilaahay waa naga bidi saas ay tahayna xisbiyay kuma haysan hal maamul bay leeyihiin annaga maxaa noo diiday markii inaan hal system yeelano waxa inoo diidayo waa dhibaatada inagu aynu isku haynay tafaraaruqa marka annaga midigta fogadaanahay waxaan soo dhaweynaynaa hal maamul inagoo ka duulayno war maanta ninaan tolkiis u urursadayn ma noolaan karo waa garaad jaamac garaad cali isimaduna kulli waa ogyihiin marka waxaan rajaynayaa insha Allah in dadku ay midoobaan wariyaan magaca Puntland asas laga qabay wariyaan magaca Khaatuma asas laga qabay war meel dhexe oo dadku isku duubni ah oo midnimo ah laga shaqeeyo taasaan ku cilcinay taasaan aaminsanahay ciyaalkii meelahan afka taagayayna taasa u guusgooyayso hadda kadibna ma jiri doono qofkii aad ka maqashaan siyaasi Puntland ka soo horjeeda Khaatuma
قورع كعير شماش هذا ريتان قفر البنتلان وساسك غبا خاتمان يسقنا ريبوت قريه وحي معلومات صح اننا نوغو يمادا انت هسن كسوك فيني وبالله توفيق